بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan anigu ku hadlayaa magaca xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo guddiga qabanqaabada ee aaska qaran ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay. waxaan markaa ugu horeysaa tacsi u dirayaa Allah u naxariisto walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariisow oo ahaa qof qaali ah. waxaan doonayaa inaan tacsi u diro dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii iyo waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan hay naga siiyo. Allah u naxariisto, ilaahay su'aasha ha u fududeeyo. Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo afgaaban oo af iyo adinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen. shakhsi karaamo leh buu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiidh dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqayneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su'aasha u fududeeyo jannatul firdawsina geeyo. Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyay in dawladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. xamar wuu u guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. taa markhaati baynu ka wada ahayn, waa uga marakacaynaa. waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay. ilaahay sabir iyo iimaan hay naga siiyo. inteena kale oo ummadda Soomaaliyeed ah, mas'uuliyiinta ah, dawlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa, suurto gelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda. magaalada xamar oo caasimaddii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof walba Soomaaliyeedba ku noolaan karayo, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo. waxaynu ku sogootaynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran. waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne Farmaajo ku baaqay in 3 cisho kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, asxaabta, ehelka, qaraabada laga odhan doono xafladdaas haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto. waxay inooga aadan oo keliya in aynu u ducayno. waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto inaynu cafinno dhammaanteen. qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafinno, aynu iscafinno, ilaahay aynu u barinno inuu u naxariisto. innagana markaan miiqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.